kulankani ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabelle ayaa looga arinsanayay sidii loo baahin lahaa maamulada dowladaha hoose loona gaarsiin lahaa ilaa heer tuulo. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dad matalaya. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar Cismaan Baarey oo soo dhaweeyay kulanka. إذا ما أنت يقبل أوتو ما بدك أنت وتشيء هذا إنه قبل الله أجرا إنه في مجال ما كذا علنا يسوي هذا وعلنا فرح صناعي وأنا سود وين الله اسمه إن فرق كفاية قلنا ما يعني منطقة إن كفاية كذا والله وهريا wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka hadlay muhiimadda kulankani uu lahaa. wixii la dhihiray waxba lama beebin wasiirka howlaha guud ayaa howlaha waxa maanta meeshaan ku fadhida si fiican oo sida anigu aan u faahfaahilahay ka qiimo badan u faahfaahiyay mar haddii aan ogaanay wasiirka aan isugu nimid in uu yahay inaan danaheena ka tashano lana cadeeyo cinwaankii oo la yidhi waa maamul daadejin waxaan u malaynaa wax noo dhiman oo hadda hadal oo dhan waan isu wadaadinayna mala dadkaan dad wax fahmaayo wada aqoon la waaye waa fahansan yihiin annagu haddaana wasaaradda arrimaha gudaha waan ogtihiin annaga shaqadeenna waxaa waaye degmooyinka iyo gobollada iyo dadka iyo tuulooyinka iyo waxaas ayaa annaga ay shaqadeennu ahayd waxaan naga go'an ama aan ku shaqaynaynay ama systemka uu yahay federaalka waana ka shaqeeyay qaabka aan ajiro dowladda xaqa federaal waxaan qaadanay loogu talagalay markii laga soo degay dowladda dhexe laga yimid ee loo soo degay maaragtay dowlad goboleedyadana waxaa waa inay maamulku waa inuu sii jiro oo gobol beriyahan waxaan wadnay haddaan idin kor maro in maaragtay shuruucdii wax lagu dhaqi lahaa haddii ay noqon lahaydeen maaragtay maaliyadda hadday noqon lahayd iyo midaan hadda u taagan oo maamul dejinta daadejinta hadday noqon lahayd iyo wixii dowladaha hoose lagu dhisay dhammaantood beriyahan shuruucdaas ayaa la waday waxbaa iyo waddankan oo uga dhaqaaqi la yahay iyadoon sharci la samayn ee hawsha la gelaayo wax kala celiya markaas ama wax kala xada ayna jirin aniga ee xildhibaan nuur xanshaad ama madax isku qaadan waxna kala in la helo oo sharci haddii kale waxna kala deebi kara ma jiraan. Safiya Ismaan Cabdulle, Puntland TV, magaalada Jowhar.